Zombie noolageeriyaad. Inkastoo qaar ka mid ah dadyowga caalamka dhaqan ahaan ay u yaqaaneen, haddana waxa uu adduunka caan ka noqday lixdameeyadii qarnigii tagay. Min bari ilaa galbeed, zombie waxa uu noqday waxa loogu cabsi badan yahay marka ay timaado sheekooyinka cabsida leh. Horarka zombie waxaa lagu sheegaa in boqolkiiba 8 dadka caalamka ee qarnigan 21aad ay aaminsan yihiin oo weliba ay u fahansan yihiin inay yihiin wax jira. Socodkooda aad moodo dad sarqaansan iyo muuqaalkooda aadka u folxun ayaa ka dhigay in malaayiin qof ayba aaminaan in mustaqbalka dambe caalamka laga cabsi qabo inay weerar ku soo qaadaan qoomka zombiga. Maanta, saynisyahanada caalamku waxa ay ku doodayaan inay heleen kiimiko loo isticmaali karo qofka inuu u ekaado zombie isagoo nool. Barnaamijkeena maanta waxa aynu ku eegi doonaa ma runbaa mise waa khuraafaad zombie, xaguuna ka yimid mabda'a ah zombie. Soo dhawow daawade, haddii aad ka heshay muuqaalka fadlan like garee si ay dhiirigelin inoogu noqoto. Sidoo kale haddii ay tahay markii kugu horreysay ee aad na soo booqato, soo dhawow, mahadsanid. Sanadyadii u dambeeyay, dadka caalamku waxa ay hadal hayeen zombie oo fikir ahaan la aaminsan yahay inay yihiin dad gaajaysan oo dib uga soo baxay goobtii ay ku jireen. Ereyga zombie oo asal ahaan laga soo minguuriyey waddanka Congo balse isticmaalkiisa laga soo bartay waddanka Haiti ayaa waxa uu ku saabsan yahay meyd dib u soo noolaaday oo hamuun u qaba cunista hilibka dad, ama qof uu qaniinay zombie oo uu ku dhacay fayraska zombie. Zombigu macno ahaan haddiinu qeexno, waxa weeye dad dhintay oo la aaminsan yahay inay dib u soo noolaadeen si ay wax u cunaan. Zombiesku badanaa waxaa la sheegaa inay yihiin dad xooggan laakiin leh hilib qurmay. Hadafkooda keliya ayaa ah inay quutaan hilib, sida caadiga ahna ma yeeshaan wax wada sheekaysi ah oo mid kasta hadafkiisa waa socod. Ma ordi karaan, balse waxa ay awood u leeyihiin in maalin iyo habeen oo dhan ay socdaan. Ereyga zombie diiniyan wax jira ma aha, balse buunbuunis ay sameeyeen shirkadaha madadaalada ayaa ka dhigay wax dhab u eg oo weliba taabagal ka noqday meelo badan oo caalamka ah. Waxaa zombie laga sameeyey filimo aad u cabsi badan oo weliba daawashadooda habeenkii ay ku cabsi gelin karto. Filimadan oo inta badan ay sameeyeen shirkadaha Bollywoodka iyo Hollywoodka ayaa waxa ay noqdeen kuwo lacaga fara badan soo xareeyay, taasi oo ku dhiirigelisay shirkadahaasi inay sii wadaan soo saarista filimada noocan ah, iyadoo weliba qaarkood laga dhigay kuwo taxane ah oo qaybo badan laga sameeyey. Waxaa ka mid ah filimada taxanaha ah ee laga sameeyey zombie, The Walking Dead oo leh 11 xalqadood oo sidoo kale loo sii kala qaybiyey 115 qaybood. Waxaa sidoo kaleeta jira kuwo aanan ahayn taxane sida Shaun of Dead. iyo filimka kaleeta ee la yiraahdo Pride and Prejudice and the Zombies. Waxaa sidoo kaleeta laga sameeyey buugaag fara badan iyo weliba heesa caan baxay oo ay ka mid tahay heesta Thriller ee uu qaado Michael Jackson. Sanadii 2019, baaritaan xog ururin ah oo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in muuqaalada zombiga ay saameyn ballaaran ku yeesheen habdhaqanka dhalinyarada da'da yar ee reer galbeedka oo jeclaaday inay isticmaalaan daroogo si ay uga ekaadaan zombiga, weliba socodkooda iska doondoonaya. Maanta, saynisyahanada caalamka ayaa isku dayaya inay dhab ka dhigaan fikirka zombie iyagoo soo saaray dawooyin kala duwan oo ay ka mid tahay dawada Flacca. Dhammaan dawooyinkan ay soo saareen ayaa waxa ay dadka ka dhigayaan kuwo sarqaansan oo weliba qaniinyo la soo aada dadka kale. Sanadii 2000 ayaa waddanka Brazil waxa uu ninkan idiin muuqda dad ku dhex cunay isbitaal kadib markii uu isticmaalay dawada Flacca, taasi oo ka dhigtay ninkan inuu aad u jeclaado cunista dadka. Kadib ninkan booliska ayaa qabtay,
waxaana lagu xiray meel gooni ah, balse markii dambe nasiib darro waxa uu u dhintay suntii ay ku beertay dawadaasi. Markuu qof isticmaalo dawada falaaka, maskaxdiisu waa ay isbeddeshaa, waxa uuna noqonayaa mid aanan ka warqabin waxa uu samaynayo. Sidoo kaleeto waxaa ku soo kordha kulayl jirka oo dhan ah, taasi oo ku qasbaysa inuu cabo wax walba oo ka hor yimaado, xitaa haddii ay yihiin dhiig. Sida laga soo xigtay taariikhyahanada, qaar ka mid ah dadyoogii hore ee ku noolaa Kongo, Brazil iyo Haiti ayaa aaminsanaa in dadka marka ay dhintaan iyaga oo laga gardaran yahay ay dib uga soo baxaan qabuurahooda, weliba iyaga oo ay hayso hamuun aad ah si ay uga aarsadaan dadkii dhibaatada u geystay. Sidaasi darteed, dadyoogani ayaa waxa ay samayn jireen cid walba oo laga gardaran yahay oo dhimata inay dhagax aad u weyn madaxa ugu dhuftaan si uu madaxa ugu burburo. Sidoo kalena waxa ay samayn jireen marka ay duugayaan in dhagax weyn ay kor ka saaraan si uusan dib ugu soo bixin. Khubaro ka shaqayso aasaarta dadyoogii hore ayaa qarnigii 20aad helay qabuuro fara badan oo qadiimi ah oo waddanka Brazil ku yaallo, kuwaasi oo ay ku jiraan qalfoof dad ah oo dhagaxyo waaweyn kor laga saaray. Sheeko xariirta zombie ayaa qarniyo fara badan ka soo jirtay waddanka Haiti, taasi oo laga yaabo inay soo jiitamaysay tan iyo qarnigii 17aad, markaasi oo addoomo ka soo jeeda galbeedka Afrika loo geeyay waddanka Haiti inay ka shaqeeyaan beeraha qasabka ee sokorta laga sameeyo. Xaaladaha naxariis darrada ah ee lagula dhaqmayay dadkaasi addoonta ah ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ayaa waxa ay ku kallifeen qaar ka mid ah addoontii inay isdilaan, balse markii ay isdileen ayaa dadka Haiti waxa ay samayn jireen in ay ku duugaan dadkaasi goobo gooni ah, weliba meydadka lala duugi jiray dhagaxyo aad u waaweyn si aysan meydadkaasi dib ugu soo bixin. Fikir ahaan iyo cilmi ahaan, zombie ma aha wax jira, balse waa sheekooyin ganacsi oo laga sameeyay malaayiin dollar oo lacag ah. Sidoo kaleete, ereyga zombie iyo mabda'iisuba waxa uu la mid yahay khuraafaadka ah in ree aakhiraadka ay dib ugu soo laabanayaan adduunyada. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeenni maanta. Tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan midkiisa kaleete, waa anigoo Axmed Maxamed ah oo inkaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.